sida ka warqabtaan ciidanka booliisku had iyo jeer isagoo gudanaya waajibaadkiisa qaran ee ilaalinta amniga gudaha wuxuu iskaga jiraa heegan had iyo habeen waxaa caawa dhacday abbaaro 7:15 saacaddu markay ahayd ayaa geerash ku yaalla agagaarka hoteelka gaari xamuula oo waaraada oo lambarkiisu yahay 17,560 oo shirkadda Omar leedahay una rarnaa sidayna taarka garaydka lagu laabo ayaa koox burcada oo gaari nooha wata ay gaarigaas oo markaa Krishboog la joogo daroolkuna ka degay halka ay dhaawac u geysteen Krishboogii gaariga ka haysteen xamuulka ciidanka booliisku howlgal ballaaran ayuu galay iyagoo ka duulaya burcadaasi halkii ay gaariga jihada ula kaceen ciidanka booliiska ee gobolka Daadmareed Oodweyne ciidamada booliiska ee Cadaadley ciidamada booliiska ee Sabawanaag waxaanu gelinay heegan inay jidadka galaan oo ay howlgalka xagga kor kaga yimaadaan halkana waxa ka baxay ciidan booliisa iyo saraakiil hogaaminaysa gaadiid nasiib wanaag kooxda burcadii ciidanka booliisku waxay iska heleen meel ilaa 10 kilomitir magaalada Badar Wanaag koonfur ka xigta halkaas waxay sameeyeen kooxda burcadii waxooga iska caabina hase yeeshee anigoo Ilaahay u mahad celiyay ciidanka booliisku wuxuu ku guuleystay inay gaarigii waaraadka ahaa ee rarnaa iyo nooha ay wateen burcaduba ay gacanta ku dhigaan waa habeen waa garanaysaan howlgal habeen la galay xaaladiisa wax dhibaatana ilaa hadda lama sheegin ama qasaara labadii baabuurna ciidanka booliiska gacanta ku haya ka hor dhici maayo baarista iyo wixii kale faahfaahina intaasaan u sheegayaa waxa kale oo halkan u sheegayaa shacabka reer Soomaaliland in ay ana u mahad celinaya sida wanaagsan ay ciidanka booliiska ula shaqeeyaan had iyo jeerna dhacdooyinka degdega ama kuwa kale ee had iyo jeer ay ku kacaan dadka nabadgelyada ka hor yimaada sida uga gacan siiyaan waxaan u sheegayaa cid kasta oo isku dayda in ciidanka booliisku ay ka qaadi doonaan tallaabo sharci ah oo waafaqsan shuruucda iyo dastuurka dalka u yaala ciidanayay ku naaloonin inay nabadgelyada qaranka Soomaaliland iyo shacabka reer Soomaaliland ay waxyeelayso ciidamada qalabka sidoo kala duwan haday yihiin ciidanka booliiska ciidanka qaranka ciidanka suubta iyo hay'adaha kale amniguba waxay diyaar u yihiin iyagoo shacabkooda kaashanaya reer Soomaaliland in cid kastoo falo noocaas ku kacda ay tallaabo sharci waafaqsan ka qaadaan intaas waa baaris wixii kale faahfaahina eedaysanaha hogaaminayay burcadaas waxa la aqoonsaday waxa la yiraahdaa Naasir Xasan Ismaaciil ragga kale la socdayna baarista ay hadii la yiraahdo soo bixi doonaan tallaabo sharciga waafaqsan waxaana la horgoyn doonaa ciidanka booliisku kama yaharin howlgalkii ku jireen waxay ku jiraan maadaama ay habeentay sidii burcadaas ay gacanta ugu dhigi lahaayeen ee u soo qaban lahaayeen waxaan Ilaahay ka rajaynayaa sida ay gaadiidka iyo alaabtaas hareed u qabteen iyagana maadaama ay habeen tahay waxaan u sheegayaa dhammaan eedeysanayaasha iyo cid kasta inay nabadgelyada isku daydeen wax yeesho in sharciga la horgeynaya tallaabadana laga qaadi doono. Assalaamu calaykum waraxmatullaahi wabarakaatuh. dooyinka caadiga iska dhaca ilaa hadda inta xogtan hayno wax meel kale oo dibadda ka yimidna maaha yani ninkan imka la aqoonsaday waan reer Soomaaliland oo la yaqaano maaha ama wax lagu tilmaamo dambiyada culus lagu tilmaamo maaha manaha waa fal caadi ah dhacdo caadi ah oo dhaca oo lagu kacay marka dee la keeno iyagii ayaa baarista iyo ujeedada ay noogaan doonaa laakiin hadda ka hor dhici maayo waxa dhacay xasaas baa la isweydaarsaday wax khasaare bay dhicin Soomaaliya dhinacyada bismillaahir rahmaanir rahiim waxaan ku iska caabin macnaheedu waa la fahmayaa waxa weeye saraakiisha ciidanka hogaaminaysa wax khasaare ma sheegin intaas kaaga jawaabaya
ciidanka booliiska Jamhuuriyadda Soomaaliland waxaan u mahad celinayaa saraakiisha uu koow ku yahay taliyaxeenka ciidanka booliiska ee halkan ku sugan waxaan aad iyo aad ugu mahad celinayaa saraakiisha iyo ciidanka howlgalka fulinayay hadday yihiin ciidamada birmadka iyo hadday yihiin ciidamada qaybaha ee soo gurmaday iyo ciidamada booliiska waxaan uga mahad celinayaa halkan waxaan leeyahay waa naftoodurayaal waa geesiyaal shacabkooda iyo qarankooda ilaalinaya mar walbana ilaahay tala saarta waxa kale oo mahad celiyaan ku celinaya shacabka reer Soomaaliland oo mar walba gacanta koobaad ciidanka booliiska siiya. Assalaamu calaykum waraxmatullaahi wabarakaatuh.